waxaa habeennimadii xalay magaalada Borama lagu qabtay barnaamij ay soo qaban qaabisay xarunta shaqo abuurka magaalada Borama ee Job Center gaar ahaan qaybteeda Tisqaad Forum barnaamijkaasi oo lagaga hadlayay deeqaha waxbarasho iyo shaqooyinka caalamiga sida ugu fudud ee loo heli karo iyo caqabadaha waqti xaadirkaasi qofka ka hor yimaada sida loo xallin karo barnaamijkani oo ahaa mid dood cilmiyeeda ayaa waxaa ka qayb qaadanayay arday wax ka soo kala bartay dalalka kala duwan ee Turkiga, China, Ingiriis, UK, Malaysia iyo Taiwan barnaamijkani waxaa ka soo qayb galay dhalinyaro ka kala socota jaamacadaha kala duwan ee gobolka Awdal aqoonyahan waxgarad mas'uuliyiin iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Borama iskugu jira rag iyo dumar barnaamijkani oo lagu soo casuumay isla markaana ka waramay fursadaha waqti xaadirkani bulshada hor yaala Saciid Cabdiraxmaan Umar Muumin Zakariya Bade Dr. Fuad Usman iyo agaasimaha tacliinta sare ee Somaliland waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay Professor Yusuf Xareed iyo sidoo kale maamulaha xarunta Job Center ee magaalada Borama Ismaaciil Miicaad marka kulli barnaamijka waxaan ugu tala galnay baan doonayaa inaan yar ka hadalno inuu isagu ismacneeyo marka waxaan mar labaad doonayaa inaan u mahad celiyo Ismaaciil iyo teamka maxadanay Borama Job Center oo runtii suurta galiyay madashan inay dhacdo forumskana in laga hadlo ay badan tahay dadkan in wax loo sheego waliba waxaan filaynaa barnaamijka inuu kaga duwanaado barnaamijyo badan oo sida loo soo camiro inuu yeesho inuu joogteeyo oo sanadka dambana xilligan ka leego sidoo kale inuu yeesho in iminka waxaan laga hadlay tixraac ay helaan oo meel laga akhristo ay jiraan iyo meelo loo sii dabagalo oo laga faa'iideysan karo waxaan jecelahay dadku inay ku kala baahaan siday naftooda u tayin lahaayeen waxyaabo laga xumaado mararka qaar kood aad arkaysaa wiil dhalinyaro oo jaamacadda iminka dhigta iyo kii qalin jabiyay ku 10 sano ka hor qalin jabiyo iska naftiisana runtii been u sheegay oo iska niyad jabsan inay maqaaxi ku kulmaan oo waliba waqti sii wada qaataan deetana qofkii iminka graduate-ka ahaa ama iminka ku jiray uu moodo noloshu sida tan inay tahay marka waxa fiican in madalaha noocan oo kale ay runtii noo badnaadaan waxaan jeclaystay inta kadib inaan aad ugu mahad celiyo walaalkii hadda iga horeeyay Yusuf Xareed Professor Yusuf oo dabcan fikradii cinwaanka barnaamijka lahaa asaga team ay wada socdeen oo noola yimiday oo xarun ahaan soo dhaweynay aanan marti gelinay madasha cusub ee arkaysaan madasha Tisqaad Forum la magac baxday waa meel idin furan dhamaantiin afkaartiina hibooyinkiina aad ku soo bandhigi kartaan qof kasta wiil kasta gabadh kasta oo rabta inay wax soo bandhigto dhalinyar group ahaw mid ahaw laba ahaw aday ku taala wixii macquul ah ee u aragnay inay dadka faa'iido u toodhan saasaan u soo dhaweyn doonaa saasaan idin la qaban doonaa maatantiin number 2 waxaan aad idinku adkeyn lahaa walaalayaal maxay tahay ujeedadan madasha cusub soo kordhinay dad fara badan oo keligii markaad ama keligeed markaad la sheekaysato waxaad arkaysaa aqoonta ku jirta iyo tayada ku jirta ay aad u sareyso laakiin qofkii keligii ama keligeeduna ay ku dhex jirto baashi marka waxaan rabnaa dad badan waxa ka dhex gubanayna banaanka u soo saarno saxmantay qodobkaasi haddaad abwaan tahay haddaad qoraa tahay haddaad political analyst oo wax taxliilin karto wax furfuri karto wixii aad ku fikirto aad rabto inaad soo saarto la kaalay inta mas'uul waafaqnaada geestiisa agaasimaha tacliinta sare ee Somaliland oo ka waramay fursadaha iyo deeqaha waxbarasho ee waqti xaadirkani bulshada hor yaala marka koowaad anigoo ah agaasimihii guud ee komishanka tacliinta sare ee Somaliland waxaan doonayaa inaan idin kala hadlo deeqaha waxbarasho ee Somaliland soo gala sida yihiin waxa kaliya ee deeq annaga Somaliland dal ahaan noo siiya waa dalka Ethiopia iyo dalkan imika xiriirka aan la samaysanay ee Taiwan marka waxaan doonayaa horta Ethiopia inaan ku bilaabo 3 sano ee ugu dambeeyay ee aan ahaa agaasimaha guud waxayna siiyeen tiraba ku dhow 1350 arday waxa weeyaan waa dad aad iyo aad u fara badan weeye 2018 waxayna siiyeen dalka Ethiopia 370 arday oo 280 ay ahaayeen degree 80 ay ahaayeen masters oo dhammaan aan geynay dalka Ethiopia sabab aan ka dejinay 14 jaamacadood baa loo qaybiyay
maanta alxamdulilaahi rabbil caalamiin kuwii ugu horreeyey oo ilaa 100 iyo xoogaya way soo dhammaysteen dalkii waxaan nahay Somaliland haddaan nahay dalkii 19aad ee Taiwan xiriir la samayso marka waxa weeyaan halkan aan waxaan la kulmay safiirka marar badan baan la kulmay safiirka iyo safiir ku-xigeenka waxay haddaba noo sheegeen in ay deeq siinayaan ardayda reer Somaliland ee digriga ah iyo kuwa masterka iyo kuwa doonay PhD-da requirementska Taiwan ardayga Taiwan tagay looga baahan yahay marar badan baan telefishinka ka sheegay guud ahaan ardayda Somaliland u sheegay laakiin haddii aan ku celiyo qaar way fudud yihiin oo ah inuu ardaygu Somaliland yahay inuuna dambi galin inuu shahaado secondary sito intaasi kadibna qaar kamid oo bulshadii kala duwaneed ee ka soo qayb gashay dood cilmiyeedkani ayaa waxay su'aalo kala duwan halkaasi ku weydiiyeen mas'uuliyiintii maanta lagu soo casuumay barnaamijka scholarshipka dalka Itoobiya sanadkii 19kii ayaan doontay kadibna waxay reebay jaamacadayda magaca jaamacadayda lagu reebay because waxa laga dhigay jaamacadaha public ah oo gaar loo siiyay marka agaasime adiga tacliintii maanta nagala joogo ugu sareeya ma la bedelayaa design-kaasoo ardayga eelo ka soo baxay ardayga camuud ka soo baxay ama hoon ka soo baxay ma loo qiimeynayaa un academic meritkiisa oo ma laga daynayaa in loo eego jaamacaddii siyaasadda guud ee dawladdu waxa weeyaan wax u dhaxeeya ma jiraan jaamacaduhu ama public ha ahaadaan ama private ha ahaadaan waxa weeyaan guud ahaan dalka ama siyaasadda guud ee dalka way u sameeyeen kuwa public iyo kuwa private laakiin waxa weeyaan waa equal opportunity waa loo sameeyahay fursadaha deeqaha waxbarasho marka ardaygu uu aado UK ama Ingiriiska waxaa jira aan ognahay inta badan dalalkan British system ku dhaqmaa British curriculumka waxay leeyihiin program la yiraahdo IELTS ka marka hor yaala ardayga hadduu yahay master candidate hadduu yahay waxa kale yiraahdo first degree hadduu yahay PhD mise kaliya wuxuu hor yaala markuu yahay first degree aqabadaas haday jirto deehan oo qaran inay wadankiiba hadda lagu baranayaa inankii IELTS-ka imtixaanka IELTS-ka ee luqadda Ingiriiska horta dabcan haddaad waxbarasho doonanayso wadamada Ingiriiska laga hadlo ama official language first language-ka English tahay waxaad ku qasban tahay haddaanad wadanka u dhalan ama aanad tacliintaadii koobaad digriga koobaad aanad wadan English majority laga hadlo aanad ka soo bixin waxaad ku qasban tahay inaad imtixaanka IELTS-ka gasho aanad darajo cayiman ka keento waxaa jira scholarship-yada qaar markaad codsato waxa la weydiinayaa application fee markaad dhamaystirto application fee-daasi scholarship-ki isagoo ah mid fully funded oo lacagtii la wada qofkii maadaama ay deeq tahay lacagta application fee-gaasi meesha ay dabada ku haysaa ama ka timid ama waxay tahay baan u baahanahay inaad naga jahil tirtaan scholarship haddii scholarship aad maqasho application fee wax la yiraahdo ma jiro midna waan idin kula talin lahaa scholarship isku website gaara oo wadamada ama website-ka jaamacadda ama website wadankaasi leeyahay oo toosa laga xiriistaa page-kan iyo website-adan scholarship-ka soo ururiyay laba danood bay leeyihiin danta koobaad ay leeyihiin waxa weeyaan inaad soo boqoto adigu oo click-ta aad siiso waxay u sameynaysaa lacag bay u sameynaysaa marka laba danta kale u leeyahay waxa weeye inaad website ku xidhanto oo lacagta fiida ee beenta aanan meel ay ku sal iyo raad leedahay aanan jirin inuu ka qaato raba labada danood buu leeyahay marka scholarship-ka aad codsanayso jaamacadda aad ka codsanayso horta raadi wadanka aad ka codsanayso raadi wadanka ama jaamacadda magaceeda ku raadi waad helaysaa hadday Chinese tahay hadday Turkey tahay hadday Malaysia tahay whatever meesha aad doonto waxay leeyihiin adduunyadu digital baa la isticmaalaa